kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walbo aad joogtaan waxaan hawada idinka leenahay ramadaanuna kariima waxa dib loo ambaqaadaya koobka horyaalada Yurub UEFA Champions League waxaana kulanka caawa sida weyn loo wada sugayo oo bahweynta xiisaysa kubadda cagta indhooda ay ku sii jeedaan oo yahay kan ka dhacaya Gida Alfredo Di Stivano oo dhacda caasimadda Spain ee Madrid halka Real Madrid ay ku soo dhaweynayaan Chelsea. Los Blancos ayaa lugta koowaad ee wareegga Semi Finalka koobka horyaalada Yurub waxay marti gelinayaan Chelsea waxayna kulankani galayaan iyadoo ciyaartii ugu dambeysay La Liga Real Madrid barbardhac ay galeen rigorooyinka labada dhinac ay isku leeyihiin markii aynu eegnana kulamadii hore ee tartamada Yurub ee ku kulmeen labada koox dhanka Real Madrid uma wacneen oo record liita ay ka istaan marka ay timaadeen Real Madrid ee la xisaabtamaan naadiga galbeedka London ka dhisan ee Chelsea. Real Madrid ayaa wajahday Chelsea in ka badan kooxaha kale tartamada oo dhan iyadoo wax guul ay ka gaarin taariikhdooda oo dhan waxa ay 1971 ay isku arkeen finalka koob Conference Cup minal gola ayna galeen kulankii hore labada koox ay ku heshiyeen xilli kulankii lugtii labaadna Chelsea ay ku badiyeen 2-gool sidoo kalena 1998 ay ku kulmeen UEFA Super Cup finalka waxaana 1 gool ku badisay Belo kulankana waxa uu noqonayaa kii 163 oo tartamada Champions League kooxaha Ingiriiska iyo Spain dhaxmara kooxaha Ingiriiska waa ay ka badiyeen 4 kulan oo qayb ka ah 7 kulan ee ugu dambeysay oo kooxaha Spain ka hor tageen 2 barbardhac iyo 1 guul daro ayna ka wataan. Chelsea ayaa markii 8aad ciyaaraysa wareegga Semi Finalka Champions League waana kooxda ugu badan ee Ingiriis ee sidaan samaysa. Real Madrid waa markii 14aad oo imaanayaan Semi Finalka Champions League. Chelsea kaliya Algeria ayay guul dareysteen lugta koowaad ee Semi Finalka ee ciyaareen 7 kulan ee hore 2 badis iyo 4 barbardhac ayna haleeleen. Real waa ay badiyeen lugta hore ee Semi Finalka Champions League ee ciyaareen 9 jeer oo qayb ka 10 kulan ee ugu dambeeyay wareegga bugbaxa kaliya 1 kulan ay guul dareysteen. macalinka Chelsea ee reer Germany ee Thomas Tuchel iyadoo Champions League la jooga kuma uusan hor ku finaalaya wax khasaare Real Madrid kama helin 1 badis iyo 3 barbardhac ayuuna ka sitaa hogaamiye hore Paris Saint-Germain marka koobka horyaalada Yurub uu ku wajahayo Real Madrid. suurtagalaasha xidigaha labada dhinac ee Zidane iyo Thomas Tuchel la heli karo kulanka caawa ee Alfredo Di Stivano. Real Madrid kubad sameeya Croatia Luka Modric Casemiro kubad burburiya Salakao Brazil. Germany qadkooda dhexe Toni Kroos golaha Belgiumka dibada Katua Dani Carvajal ciyaaryahanka garabka midig ee daafaca ka duulaan tagay qaranka La Roja Spain iyo Real Madrid. Faransiiska qadkooda dhexe Rafael Varane ayaa ka mid xidigaha la heli karo. Brazil center back-gooda Real Madrid Eduardo ninka la yiraahdo Eder Milito. Nacho Fernandes ayaa ka mid xidigaha la heli karo. Marcos Asensio Karim Benzema weeryahanka Real Madrid iyo qaranka Faransiiska. Brazil daayirkooda iyo Real Madrid Valakis Junior. Thomas Tuchel iyo xirtiisa kulamada ciyaartoyda caawa la heli karo. Monza Mondi daayirka reer England weeryahanka Germany Thomas Wina. Senegal golahayooda iyo Real Madrid ee Chelsea anirade Eduardo Mendy. Cesar Azpilicueta ciyaaryahanka reer Spain iyo Chelsea daafaca dhexe Germany iyo Chelsea Antonio Rudiger. Brazil center back-gooda iyo Chelsea Diego Silva. Reece James ayaa ka mid xidigaha la heli karo. Azuri qadkooda dhexe iyo Chelsea Jorginho. kubad burburiyaha Faransiiska iyo Chelsea Nicole Kante ayaa sidoo kale ku jira xidigaha la heli karo. garabka daafaca ee qaranka Three Lions England iyo Chelsea Ben Chilwell.
iyo kubada abuuraha qadka dhexe ee Germany Kai Havertz ayaa ka mid xidigaha Thomas Tuchel oo kulanka caawa heli karo. geeska Afrika ciyaarta weyn Alfredo Di Stefano Real Madrid iyo Chelsea ayaa la daawanaya caawa 4 saac oo habeenimo. labada koox ayaa lugta hore ee koobka horyaalada Yurub adkaan kara oo lug la sii gali kara Semi Finalka Champions League koor toddobaadka dambe inta labada koox isku arkin galbeedka London geeda dhacday Stamford Bridge. aragtidiina barta Facebook ayaa saaxiibayaal noogu reebi kartaan. inta ayaan ku soo gabagabeynayaa xogtii ku aadneeda kulanka weyn ee Semi Finalka koobka horyaalada Yurub Real Madrid iyo Chelsea, Thomas Tuchel iyo Zinedine Zidane. waxaan idin leeyahay saaxiibayaal dib inta u kulmi doono Ramadaanuna Kariim.